بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن سلام يا دمان شعب غير سوماليلاند وعن أبو قبرية إن حجيدي حجك سو تكتي حجكي يعمل شو ذي بإلهي كاقبله وعن إلهي ويديننا عافمات لما ضدك حنوصنا إياه غير سوماليلاند وضمبين waxaan eebba ka baryayaa inuu amniga iyo iimaankaba inoo adkeeyo. waxaan ugu baaqayaa shacbiga reer Soomaaliland inaynu wada ilaashano nabadda iyo qarannimada Soomaaliland. dhawaan safar kooban baan ku tegay dalka Itoobiya. waa dal weyn oo aynu jaarnahay. waxa ka socda isbedel weyn oo xawli ku socda oo saameyn badan ku leh dhammaan gobolka Geeska Afrika. waxay nagu waajibaa inaynu si dhow la soconno isbedelkaas. muddadii aan joogay dalka Itoobiya waxaan la kulmay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda federaalka Itoobiya, baarlamaanka iyo diblomaasiyiinta fadhigoodu yahay dalka Itoobiya. waxaa kaloo la socotaan in isbedel ka dhacay kililka Soomaalida ee dowladda federaalka Itoobiya lana doortay madaxweyne cusub lana dhisay xukuumad. waxaan hambalyeynaya madaxweynaha kililka loo doortay mudane Mustafa Maxamed Cumar Cagshar iyo xukuumaddiisa. waxaan eebba uga baryayaa in Ilaahay u fududeeyo xilka cusub ee loo doortay. walaalayaal, waxaynu ka warqabnaa xaaladda guud ee Soomaaliland halkay maanta marayso. Soomaaliland waa qaran 27 jirsaday, hase yeeshee weli aan ku guulaysan himiladiisii koowaad ee ahayd inaynu helo ictiraaf caalami ah. waxaa maanta jira dhaqaale xumo ay ugu daran tahay sicir barar naxariis daran oo noloshii dadka ciriiri geliyey. xukuumadii kala dambeeyey ee xisbiga kulmiyana aanay ku guulaysan inay xal u helaan. waxaa jirta shaqaala'aan baahsan oo shacbiga dhammaantii taabatay, gaar ahaan dhallinyarada Soomaaliland. waxaase nasiib wanaaga in hantida ugu weyn ee shacbiga Soomaaliyeed gacanteeda ku jira uu yahay mid ka mid ah nicmooyinka ee bixiyada ugu weyn oo ah amni, xasilooni iyo nabadgelyo. xasiloonidaas iyo amnigaas waa astaanta Soomaaliland kaga duwan tahay Soomaalida inteeda kale. waa waajib in wada saaran dhammaanteen inaan ilaashano nabadgelyada, Ilaahayna ugu mahadnaqno. weli waxa maankeenna iyo maskaxdeennaba ka qoyan geedigii dheeraa ee qodxaha iyo xanafta badnaa aynu soo marnay nabadaynta Soomaaliland. nabaddu waa tay noo suurtagelisay inaan samayno horumarka maanta aan ku naaloonayno: dhismaha dowladnimada, samayn dastuur iyo abuuritaan hannaan dimuqraadi iyo axsaab fara badan. himilada xisbiga waddani waa ilaalinta midnimada, wadajirka iyo qarannimada shacbiga Soomaaliland iyo in la helo dowlad wanaag. xukuumadda Soomaaliland waxaa saaran oo waajib dastuuriya ku ah wax ka qabashada xaalad kasta oo nabadgelyo xumo oo dalka soo wajahda, sida ay u maaraysana shacbiga iyo qarankuba wuu kala xisaabtami doonaa. qarannimada, nabadgelyada iyo midnimada shacbiga waxa ilaalin kara oo keliya cadaalad, wada lahaanshaha iyo sinaanshaha in loogu adeego shacbiga. Soomaaliland maanta deegaan kasta waxaa taal tabasho weyn, tabasho heer walba oo taabanaysa adeega bulshada, haddii ay tahay caafimaad,
darro hadday tahay biyo la'aan iyo shaqo la'aan waddo xumo iyo waxbarasho la'aan waxaa jira cabashooyin shacab oo ah inaan loo sunnayn fursadaha dhaqaalaha iyo qandaraasyada qaybinta adeegyada dawladda mashaariicda horumarinta iyo qaybinta darajooyinka waxaa waajib ah kuwa xukuumadda inay dhegaysato waxna ka qabato cabashooyinka iyo tabashooyinka shacbiga ee deegaan kasta waxaan ka digaynaa in dhayalsiga iyo ka dhagaadayga xukuumadda ee dhawaaqa dheer iyo cabashooyinka ilaahay naguma keene ay keeni karaan burbur ummadeed iyo fashil dawladnimo gobollada bari ee Sanaag iyo Sool waxaa intaasu dheer xaalad werwer leh oo nabadgelyo darro shacbiga reer Sanaag iyo Sool waxaan cod dheer ugu baaqayaa inay ku faraadaygaan nabadgelyada nabadda Soomaaliland waxaana xaqiiqa in inta tabasha jirto amni darrana ay jiri doonto waxa mahadnaq iyo bogaadin inaga mudan gudidii loo soo afjartay colaadii degmada Ceelaf Weyn ee isugu jirtay culimada iyo madaxda dhaqanka iyo dadkii kale ee ka qayb galay xasilinta deegaankaas ciidamada qaranka iyo Korneyl Caare ciidamada qaranku waa astaanta karaamada iyo sharafta dal kasta leeyahay ciidanka qaranku waa ilaaliyaha nabadda ciidda iyo shacabka waxa uu ka madax bannaan yahay siyaasadda iyo in loo nisbeeyo reer ama beel ama xisbi Korneyl Caare waa sarkaal sare oo magac iyo maamuus ku leh ciidanka qaranka Soomaaliland dhexdiisa kana mid ahaa mujaahidiintii dalkan xoreysay ma ahayn siyaasi kamana mid ahayn xisaabta qaranka Korneyl Caare waxa uu amar ka qaadanayay maamulkiisana lagu ogaa taliska ciidanka qaranka Soomaaliland iyo xukuumadda sida uu qalabka warbaahinta ka sheegay Korneylku wuxuu uga tagay ciidanka cadaalad darro iyo sadbursi kamaynu maqal warbaahinta in taliska ciidanka qaranka Soomaaliland iyo xukuumadda midkoodna sameeyay guddi baadhiseed oo soo xaqiijisa ama beenisa warka Korneylku sheegay sida laga xaqiijiyay odayaasha deegaanka ka soo jeeda Korneyl Caare oo u tagay madaxweynaha bishii Ramadaan waxa madaxweynuhu ku wargeliyay inaan lagala hadal arrinta Korneylka ay xukuumaddu go'aan ka gaari doonto sidoo kale gudidii khayrka qabtay ee xidhay isla markaana xasilisay nabadda Ceelaf Weyn waa xukuumaddu ku wargelisay in arrinta Korneyl Caare iyadu xal ka gaari doonto Korneyl Caare muddo ku dhow 4 bilood ayuu joogay deegaanka Ceelaf Weyn isagoo ka maqan ciidanka qaranka xukuumadda Soomaaliland iyo taliska ciidanka qaranku waxa la kamay samayn go'aanna kamay gaadhin arrinta Korneylka heshiiska nabadana laguma darin oo xukuumadda ayaa iska hortaagtay arrinta Caare xal waa loo heli karayay culimadii iyo guddigii dhaqanka ee nabadda Ceelaf Weyn dhamaysay ayaa diyaar u ahayd inay gasho xisbiga wadani ma qabo mana taageerayo in dagaal xabad ama jabhadayni tahay xalka dhibaatada maanta Soomaaliland haysata ee adag ama xal u noqon karto tabashooyinka iyo cadaalad darrooyinka laga cabanayo wax ka qabashada iyo xalinta arrinta sarkaalkan ka tirsan ciidanka qaranka waa xilka xukuumadda Soomaaliland iyo taliska ciidanka qaranka xalka waxaan u aragnaa in runta laga wada hadlo
oo la isdhegaysto oo dalka arrimihiisa cakiran dariiq siyaasi ah lagu xalliyo xalka waxaan u aragnaa in dadweynaha dhawaaqoodu baxayo ee dami leeyahay ee cabanaya ee koona kasta Soomaaliland kaga nool la dhageysto cabashadooda waxna laga qabto xal uma aragno iyo inay arrinta nabadda u adeegayso midna in maalin kasta jeelasha laga buuxiyo dad aan cadaymo faldambiyeed loo hayn lana soo daayo xitaa iyaga oo aan maxkamad la hor keenin marka bilo lagu hayo xabsiga halka waxaan u aragnaa in qaranka wada lahaanshihiisa si ficil ah loo muujiyo qalinka madaxweynuhuna shacbiga u xaq sooro xisbiga wadani wuxuu diyaar u yahay kaalin kasta oo hawlaha qaranka kaga aadan inuu ka qayb qaato hantida la soo celinayo sida ka war qabtaan barnaamijkii siyaasiga xisbiga wadani waxa la fadhabar u ahaa in la soo celiyo hantidii aan sifaha sharciga ku bixin waxa waajib ah in soo celinta hantida ee markii hore khaladka lagu bixiyay loo maro dariiq sharci ah ayna noqoto arrintaaba ta muwaadin kasta oo sifaan sharci ahayn ku qaatay hanti umadeed balse waxaan si weyn uga digaynaa inay cid gaar ah la bartilmaameedsado muwaadiniinta dib loogala wareegayo hantida dawladda waa in la dhowraa xuquuqdooda si daafuran loola xisaabtamaa lana siiyaa wixii ay magdhow xaq u leeyihiin hannaanka doorashada xisbiga wadani wuxuu diyaar u yahay doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka in xilligoodii ku qabsoomaan waxa si muhiim ah in la xalliyo caqabadaha soo socda doorashada ka hor in madaxweynuhu go'aan ka gaadho arrinta saami qaybsiga kuraasida baarlamaanka in heshiis laga gaadho arrinta kootada kuraasta haweenka iyo beelaha laga tiro badan yahay in la dhammaystiro xeerka doorashooyinka ee isku dhafan ugu dambayn in la helo guddi doorasho oo haysta kalsoonida dhammaan axsaabta iyo in wax laga bedelo tirada xubnaha komishanka oo xisaabtu si siman lagu qaybiyo gunaanad shacbiga reer Soomaaliland waa shacbi xariira oo nabad jecel ogolaan mayno in siyaasad xumada iyo bisay la'aanta xukuumadda kulmiye deganaansho la'aan ka riddo Soomaaliland waxaan samayn doonaa wax kasta oo awoodayada ah si aan shacabka walaalaha ah loo adkeeyo walaaltinimadiisa midnimadiisa iyo wada jirkiisa waxaan ku soo guunaanayaa kelimad kaftana nin baa lagu yiri magaca dabeedna wuxuu yiri loogi dabeedna xilli lagaga fadhiyay madaxweynaha maalawdu jaamacadda Hargeysa ka hadlayay wuxuu waxa noqonayaa oday wax maqla cadaalad baan sameynaya waxaan leeyahay lagaga fadhiyay